كل معنا وناكسن داوده halkan waa TV-ga gobolka Banaadir ee Banaadir TV waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka duhurnimo aynu ku eegi doonana waxa qayb ka noqon doona barnaamij ka dhana mucaaradka oo ka socda waqooyiga Muqdisho iyo dadkii ugu badnaa oo isugu soo baxay dibadbaxaasi waxaynu eegi doonaa qaar kamida markaasi dadka isku soo baxay ee dibadbaxayaasha ahaa oo halkaasi ka hadlay sidoo kale waxaynu eegi doonaa dibadbaxayaal lagu taageerayo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka socda degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir warkeena duhurnimo waxaynu ku eegi doonaa dibadbaxyadaasi markaasi hadda socda sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ka warbixiyay doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed markaasi ka dhacay qodobadaas aynu ku eegi doonaa gool u diyaar garow warkaas oo faahfaahsan وهاك داودي أينو كبلونو قضبضا وراركا مركاسي آن إذين سو شيغي بنامباح كدنا معارضكا أو كسعودا وقويغا مقدشو حد آن إذين لها اللايو دادكي أو قبنانا وحيسوغو صوبيحين دباد بحياداسي واربيحين كوبان وحالكاسي كسوغان وريهينا فرحان محمد حسين بنامباحي أو قبلارنا أيا هالكان كسعودا كدي مركي دادويناها كودقان وقويغا عاصمة ساكا يسوغو صوبيحين ودادان إسلامركانا وحا إيشيغين إن مرنبا aysan aqbali doonin in degmooyinkooda wax qalalaasa laga sameeyo waxa ay fariin adag u direen xubnaha mucaaradka dawladda ee fariisinka ka sameystay waqooyiga caasimadda iyagoo sheegay in dadkaasi mucaaradka ay halkan ka guuraan maadaama dadweynaha waqooyiga caasimadda aysan marnaba aqbali doonin in degmooyinkooda colaad laga horiyo shacabka waqooyiga caasimadda degmooyinka ka kala yimid ayaa waxay fariin adag u dirayaan xubnaha mucaaradka dawladda iyagoo sheegay in marnaba markaasi ay suurtagali doonin in colaad halkan laga abuuro sidoo kale dadweynahan ayaa ku dhawaaqaya hadallo ka dhan ah xubnaha mucaaradka dawladda iyagoo sheegay in dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay si buuxda u taageerayaan isla markaana ay soo dhaweynayaan doorashada dadweynaha maalintii labaad halkan waxa ka soconaya banaanbax weyn oo markaasi xubnaha mucaaradka dawladda loogu soo horjeedo iyagoo sheegay dadweynahan in ay markaasi marnaba aysan aqbali doonin in colaad laga abuuro waqooyiga caasimadda shacabkan ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi soo dhaweynayaan doorashada dadweynaha isla markaana marnaba aysan aqbali doonin in degmooyinkooda laga abuuro wax colaad ah farxaan maxamed xuseen warbaahinta gobolka muqdisho ومحسن يهاي وريهنا فرحان محمد حسين أيو مركاسي هادي بدبحيدا أيينا مركاسي كوجودو جرناي قار كم إذا شعب كم مقدشو أيا إيجانا مركاسي بنامبحاسي كهاللي وحينا مركاسي شيئين إني تاجر سيهين دولة فدرال كي صوماليا إيو سيدو كليتو أمنية عاصمة مركاسي كجيرا مري لها الليين وربهين تلا وحا هذا الله ذي كملها ما حاربتين إن غلا جور مربتين من غير ما وربتين لما كل ما تيكون مربتين لما كل ما تلي على مجهو لما ما يسمو بالحراية 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 حسن شيخ بالحراية بالحراية لما مربنا لما مربنا بارس مربنا لما مربنا بارس مربنا وفعل مربنا نكديو 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 دورس نكديو دورس نكديو دورس نكديو نك لما تعرفين نك أنا ما تعرفين نك من الرأينا أي كريجة نك من الرأي حوربتين أي حوربتين من الرأي وحارب هنا شيء من الرأي ماشي اللي راولا بدو كل ما تيجون نقميسو بدبارة تورا نقميسو وريالو قصربين من الرأي نبضواي dadkana dabqeedaas ay istawaayaan xabad ma rabtiin dib ma rabtiin dadna ma rabtiin sheekha waa jecla sheekhayna waxa leenahay sheekhayga guriga ku laabo sheekhayga guriga ku laabo heerkaana nimba rabaan heerkaana nabada rabaan waxa rabnaa dawladda madaxweyne xasan sheekh ninkii wax rabo madaxweyne xasan sheekh doorasho waane halala tartamo ninkaana tartamo gali karine gurigiisa dhaxda ka xirto waa maasantiin heerkaana shucuurtada ka xasan بسم الله الرحمن الرحيم meeshaan isu soo baxaan wuxuu ku saabsan yahay muqdisho inay rabto nabad inayna rabin rabshado waxa lagu taageeraa dawladda waxa lagu taageeraa qof iyo cod waxa lagu taageeraa gobolka Banaadir waxa lagu taageeraa xukuumadda dan qaran yeeli mayno in muqdisho la gubo yeeli mayno waa ka gudubtay banaanbax iyo rabshado wata waxa waa taageero qof iyo cod aan rabnaa qoftii wax rabto qof iyo cod ha gasho bay dhabay ka socotaa
gobollada dhan waa ka bilaabay gobolka banaadir ka bilaabaysa qof iyo cod hal wado waxaan rabnaa oobsiyaasha halada dhiman inuu dhammaystiro quruxda magaalada bilicda magaaladaan rabnaa soo dhawaa weligaa jira joog ha dhicin waxaan maarata halkaan isugu nimidnay inaan maarata nabadgelyadeenna iyo midnimadeenna iyo dawladnimadeenna inaan maarata ilaashanno inaanaan u baahnaynin in fadqallo iyo dagaallo sukeeya iyo maarata nabadgelyo darro maarata nala geliyo waa hagaag weli banaanbaxa ayaynu daawada markaasi ku guda jirnaaye degmooyinka kala duwan isagana banaanbaxyo ayaa markaasi ka dhacay lagu taageeraya dowladda federaalka ee Soomaaliya dibadbax lagu taageeraya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa isagana ka dhacay degmada Kaaraan Farxaan Maxamed Xuseen mar kale dal xuraaye kuwa naqaribaayo ee isbaarada wadaan ee dagaalka nagu wadaan hadda caano kuwa laga socolaya hadda caano kuwa magaalada qarribaya hadda caano banaanbaxay sheegayaan 4 qofood xataa kaasama karaan xasan anagaa ka sukayno shacabka Soomaaliyeed ka sukayo siiba haweenka ka sukayo wiilashaydana ma galayaan dagaal waxaan in kala soo hadlayaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir dadweyne aad u tiro badan oo ku dhaqan degmadan ayaa galabta halkaan iskugu soo baxay waxa ayna taageero weyn ay u muujiyeen dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay wataan boorar uu ku sawiran yahay madaxweynaha qaranka iyagoo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in amniga caasimadda lagu ciyaaro waxay fariin adag u direen xubnaha mucaaradka kuwaasi oo isku dayay maanta in qalalaasa ay ka sameeyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho hase yeeshee si weyn loo xakameeyay iyagoo dadweynahan ay sheegeen in ay markaasi taageersan yihiin dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay waafaqsan yihiin go'aamada ka soo baxay dawladda dadweynahan oo u badan dadka ku dhaqan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir iyo odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in ay ogol yihiin in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah isla markaana aysan ogoleen in dib loo laabto xubnaha mucaaradka ay ku eedeeyeen in ay yihiin dad aan hore u socon isla markaana ay diidan yihiin doorashada dadweynaha waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha degmada Kaaraan oo galabta iskugu soo baxay taageero weyn u muujiyay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay markaasi hadalladooda ka mid ah nimanka odayaasha ah madasha baagamuudada jasiire warkooda ma rabno nabadaan haysanaa war hadday dad u naxayaan war afarti tuulo ceelbuur nimanka ugu tundheer meesha ay ka soo jeedaan maxay wax uga qaban waayeen hal biri wadaadka annaga loo xiga Sheekh Shariif asagoo ka hadlaaya ma arag muxuu u xuray waayey ceelbaraf muxuu u xuray waayey meyrtuugu muxuu u xuray waayey biyacadde war adiga maxaa dhacay muqdisho nabada ma rabno ceelbuur xasan cali khayrow adoo cali dheero walaalkaa wax ka sheegaysa ma arag halbiri war cali dheero ma iska qabatid maxaad dadkaan nabada banaanbaxa ugu baxayaysaa war nabadaan haysanaa guddoomiyaha gobolka Banaadir xasan maxamed xuseen muugaab waa magaalada ninkii wadooyinkan dhisay aftiishay xureeyay xukuumadda tanqaran xamse cabdi barre wuxuu ahay ninkii yidhi aniga siyaasadda waa ku cibaadaysana waxaan maanta isugu soo baxnay taageerada dawladda oo ugu sarreeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dal xureeye ra'iisul wasaaraha lamada gole guddoomiyaha gobolka oo qaali nugu ah oo wax badan oon weli la arag waddanka hadduu xilka qaaday laga faa'iiday intaas kadib waxaan rabnaa inaan sheegno waxaan ka mid nahay shacabka degmada Kaaraan jooga annaga haddii ilaahay ku idmaayo madaxweynaha hortiis mugdigaan ku jirnay dadkeenna xaafadaheenna waxay ahaayeen luuqyo xashiishka lagu cabo meel la mara ma lahayn waa rafaadsanayn waxaan mar lamada marsiis adigu mahad ilahaynaa madaxweynahayna iyo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyahayna degmada qaaliga hawsha ay noo qabteen annaga nalama xoogin nalama qasbin wax badana u daba joogna annagoo raacayna amarka madaxweynuhu baxshay oo ahay mugdiga iyo laga baxo mataqaanaa meelaha aan dadka mudnayn xasan anagaa ka sukayno shacabka Soomaaliyeed ka sukayo siiba haweenka ka sukayo wiilashaydana ma galayaan dagaal mana u gali doonaan nuucaasna u dagaalami maayaan Abu Barsa ha baxyo waddanka oo yimid ha aadiyo eerti haddaanta annaga eer ma qaadano waddankayna baxrimin weeye waxaan isugu nimiday shaxuur dulmilow dalka dulminaya ee raba dalku inuu dumo dadku inuu leedo in la hoogee la habaabo nin raba dadkiisii dibadda geystay hal haba maanu joogan gurigiisku xira waxuu raba sheegay
dooni mayno dulmilow dooni mayno daniiste dooni mayno gacmo daahira aan wax daahiro tuugadii dhammeed tuugadii ummadda dhici jirtay ama dhibaatay geysan jirtay ma aasii jiraan hortiina ogaatiin rabnaa bulshada degmada Kaaraan waxay diyaar u yihiin wixii caawa ka dambeeyo inay iska dhacashaan wixii ku soo baxo diyaar ma tihiin dal xuraaye xasan sheekh diyaar ma tihiin tuugada inaa iska bursin diyaar ma tihiin hadda caano dowladda Soomaaliya ayaa gobolada dhan waxa ay doonaysaa inay ka qabato doorashada dadweynaha hase yeeshee maanta waxaa doorashada dadweynaha u dareeray shacabweynaha ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed iyadoo shacabka magaalada caasimadda Muqdisho ay sugayaan inay u dareeraan doorashada golaha caasimadda Farxaan Maxamed Xuseen warbaahinta gobolka Muqdisho waa hagaag daawade weli warka duhurnimo ayaynu markaasi ku guda jirnaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankana waxay ka warbixiyeen doorashooyinka maamulka koonfur galbeed markaasi ka dhacay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Cabdikariin Axmed Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay doorashada ka dhacday deegaanada kala duwan ee maamulka koonfur galbeed waxaa dhacay maamulka South West State koonfur galbeed waxaa ka dhacay doorashooyinka is saarnaa oo waqti badan la sugayay saaki markay noo ahayd subax 6 in the morning ama 12 saac subaxnimo baa goobihii furmeen waxayna xirmeen maqribadii markay ahayd 12 maqribnimo ama 6 pm sida loo yaqaano si nabada ayay noogu soo xirmeen alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan rabaa fursadda inaan uga faa'iideysto marka boolinka la xirayo macnaheedu maaha in albaabka la xirayo maaha kaliya askariga ama sarkaalku waa baxaya laynku hadduu dheer yahay meesha ugu dambaysa ayuu istaagahayaa oo ka xirahayaa dadkaas waa in la dhameeyaa meelaha qaarkood ay ka mid tahay hal goob weli dadkii waa la dhammaynayay laakiin boolinadii kaloo dhan waa soo xirmeen haddana waxaa socota tirintii codadka waa ilaahay mahadiis in 3 gobol oo waaweyn oo uu ka koomo maamulka koonfur galbeed oo kala ah shabeellaha hoose gobolka baay iyo bakool inay maanta ka dhacday doorasho isa saaran oo mid ka mid ay ahayd doorashadii golaha wakiilada 60 sano ku dhawaad kama dhicin doorasho noocaas oo kala maamulkaani waa maamulka ugu dhibka badan oo ay shabaabku ay afeeyeen 13 kaas degmo ma jiro degmo kale baabuur loo raaci kara ma jiro saan shaqaale u geyno on qalab doorasho u geyno waxaan ugu kacaynaa helikobtero iyo diyaarado charter u kireysan mar haddii aan meelaha saas u adkaa aan doorasho ka qabanay oo dadku ayna isu gudbi karin ood aragteen maanta dadkaas iyagoon cidna ka cabsan inay soo dareereen layman dhaadheer galeen rag iyo dumar aruur iyo roole dadka baahiyaha gaarkaa qaba aad markhaatiga ka ahaydeen mar haddii dadkaas ay codeeyeen waxaan qabaa isteedyada kale oo dhan waxay noqonaysaa wax aad u fudud inay dadku u dareeraan doorasho qofyooda waxaan rabnaa insha allahu tacaala 24 saac soo socota waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada hordhaca ah bidmillahi alkariim oo aan gudbin doono maxkamadda sare inay maaragtay nagu raacdo kadibna waxaa la geli doonaa procedure-kii ahaa in baarlamaanku uu bilaabo inuu isdoorto guddoonkiisa doorto koonfur galbeed kadibna madaxweynahooda la doorto schedule-kooda annaga aan soo dhejino waa hagaag daawada guud ahaan warkii duhurnimo aynu ku eegaynay banaanbaxa markaasi kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir ka dhacay halkaas ayaan ku ekeenayaa warka waxaa halkan idinla socodsiinayay anigoo cabdiqadar maxamed macalin kalgacal intaan ku kulmi doona warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo